soo dhawaad walaalaha qaaliga meel kasta adduunyada ka joogtaan waa walaashiin maanta waxaa idin wadaa cunto aad u macaan afraha iska koosanaysaan inaba caadi ma lagama sheekeyn karo waxaan halkan uga mahadcelinaa walaalaha nagu cusub ee nagu soo biiray ee familka ka mid noqday waxaan leeyahay aad mahadsantiin thank you so much marka insha Allah walaalihii hore u jooga idinkana aad mahadsantiin kuwa cusub waxaan leenahay soo dhawaada subscribe noo saaro walaalayaal qaali ee videoga share gareey familiga friends kala qaybs insha Allah usii gudbi like ta commentiga insha Allah waa free hanaga baqiilin insha Allah si aan maxaan ku dhahaa anaga dhiirigelin ay noo tahay usoo gelin waxyaabo badan oo ida cajib insha Allah hadda waxaan ku darsanay toon iyo basal ayaa ugu horeeyay maxaan ku dhahaa hadda waxaan ku daray basal baarta geed u eg maxaan ku dhahaa celery on soo jarjaray on soo dhaqay oo masha Allah nadiif ah aan ku daray waan isku dhexgelinayaa waxa inoogu horeeyay saliid olive oil marka ay saliid haysid ayaad isticmaali kartaa aniga waxaan isticmaalay wax yar oo olive oil ah marka masha Allah lagama sheekeyn karo baastadani waa baasto dhaafta waaye marka waxaan ku dareynaa qudaartii nooc ka mid ah waa baradho iyo karooto masha Allah soo jarjaray oo aad uma yaryareenin medium size ka dhigay dhexdhexaad ah markaan soo dhaqay masha Allah markaan was dhexgelinaynaa xilliga qabaha especially aad ay u wanaagsan tahay masha Allah cuntada winterka iyo cuntada summerka ah waa inay noqdaan cunto kala duwan si macnaha aad jooga oo la qabsatid bas hadda waxaan ku dareynaa black pepper waxa way filfisha nooc madow oo shiidan insha Allah inta dhadhankaaga yahay aad ku darsan kartaa oo jeceshahay waxaan kale ku daraa wax yar oo cusbo ah aniga cusbada ma jecli haday badan tahay caafimaadkan uma wanaagsano insha Allah markaas hadda markuu isku walaaqeynaa waxaan ku dhahay masha Allah lagama sheekeyn karo mar walba oo kari waxay dhahan familiga wax kale waxaan noo sameynin mistroni uu noo kari bis marka adinkana waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontaan insha Allah maxaan ku dhahaa hadda wax yar waan dabooleynaa waxaan ku dayaa shishiid marka hore oo laba qaando oo yaanyo shishiid ah wax walba kaamirada ay ka tusinaa inta aan isticmaalin ka hor si maxaan ku dhahaa hadda ugu wareerin aad maxaan ku dhahaa ogaataan wax walba oo isticmaal insha Allah yaanyo shishiid laba qaando ku dareena marka was dhexgelineena masha Allah dhadhanka waxa ku yiri caadi ma aha masha Allah waxay noqonaysaa wax isku dheelitiran wax walba oo guriga ku samaystay oo ogtaa wixii aad ka samaysay wax ku dhahay aad iyo macaan badan yihiin marka hadda waxaan sameynaynaa waxaan ku dareynaa yaanyada oo waxaan ku dhahaa yaanyada caadiga ah oo suugada u isticmaalno nooceeda qasaca ah halka qasac dhan waan ku darayaa insha Allah waxba kama soo reebayo insha Allah saidin shay kaamirada aad ka tusinaa wax walba oo ku darayo meeshas si hadhow maxaan ku dhahaa idinku fudaato marka insha Allah soo dhawaado walaalaha qaaliga aad amaasantiin feedback-in waa helaa maalin walba markaas video markaan soo dhigo snapchat-keen ku share gareeya asxaabta halkaas igala soo xiriiraan idhaan xagee aaday maxaa dhac video soo dhigaysid miyaa marka waa idinka mashquulay raali noqda waa iska adduunyo mar walba waxaan dhahaa kaamirada maxaa u duubaysay maxaa u soo qaban weysay marka order badan ay imaad hadda qaar isticmaalay qaarna wali aan furin insha Allah waa idin soo duubi doona video idinka soo sameyn doona duu ilaahay raali ka dhigo masha Allah hadda waxaan ku dhahay soon ready way qudaartan aad ha u karinin marka qudaarta aad u karisid waxa ka dhimanaya fitamiinki aad ka heli lahayd marka uma baahan inaa maxaan ku dhahay wax badan aad karisid ayadoo maskoota ah ama ceeriin camal ah ama maxaan ku dhahaa ku daraya chicken broth waa maraq digaag biyo kulul aad ku dareysaa haddii aad haysanin isagoo diyaar dukaanka aad ka helinin maxaa la dhahaa isagoo vegetable broth jiro maxaa la dhahaa hal litir waaye marka naguma filnaanayso biyo yar ayaan u celinaynaa oo kuleel ah oo soo karkariyay ujeedaan adiga koob camal ah aan ku dareynaa baastadana ma badinayo maadaama qudaarta ay badan tahay waxaan ka dhigayaa hal koob un because hal koob markaa ka dhigtid masha Allah way badanaysaa laakiin waxay ku xiran tahay qiyaasta familkaaga inta uu ka kooban yahay insha Allah marka aniga hal koob isticmaalaya baasta ah ay baasta aad haysto isticmaali kartaa baasta macaroni nooc walba noqoto wali ma ku baroobeen baasta dheer maybe way shaqeynaysaa laakiin hadda baasta macaronida nooca aan haysto ayaan tusina insha Allah aan ku dari doono waa hal koob ama rubac sida u taqaanid
marka insha Allah daawasho wanaagsan noocaas had isticmaalaa baastada marka insha Allah baasta walba waxay haystaa daqiiqada loogu talagalay inaad ku karisid dusha sare ugu qoranta insha Allah tan hadda ma xasuusta 8 ama 9 daqiiqo ku qoran marka insha Allah minute on daboolena dabkana ha u dheereenin waa inaad gaabiso dabka hadda dabka dheerisid wixii dhaqsiga ka gubanay biyihina way ka dhamaanayaan marka dabka wax yar oo gaaban uga dhig si maxaan ku dhahaa oo in kaaga guban insha Allah daboolena waa isku soo noqonayna insha Allah isku soo noqonay ma sha Allah is ready diyaar waa inaan la cuno laakiin waxyaabo kale hadda ku sii dareena inta aan maxaan ku dabka aan ka xirin oo qaadanayso 2 to 3 minutes 2 ilaa 3 daqiiqo waa green beans waxa way digirta cagaaran maxaa ku dhahaa frozen ah ujeedaan spinach 3 baan ku daraa spinachka hadii aad keel haysatin wuu ku shaqeynayaa hada spinachka fresh ka wuu ku shaqeynayaa ma sha Allah hadda waxaan aad u jeclahay inaan haysto beans nooca cadka ah white beans ma haysto laakiin dib ma lahan marka insha Allah waan ku tijaabiyo ayadana ma sha Allah lagama sheekeyn karo inaba caadi ma ahan after 3 minutes dabka waan ka dileynaa waxa way diyaar inaan la cuno insha Allah ujeedaan ma sha Allah it's ready to eat wallahi marka dabka waan ka xirnay marka waan soo guraya insha Allah daawasho wanaagsan stay tuned guys waa kaas ma sha Allah waxa ku dareena hadda cheese mozzarella cheese al cheese ka ku darsan kartaa ama wad ka deyn kartaa kuma qasbanid dadka qaar ma jecla cheese-ka marka kuma qasbanid inaad ku darto hadii aad jeclaan insha Allah hadii aad haysto nooc kale cheese ah wad ku darsan kartaa insha Allah ana idin dhadhaminaya bismillaah aad u kulusha ama gubtaa bismillaah wow lagama sheekeyn karo cheese-ka marka ku dartid more cheese ku darsan kartaa hadii aad ruux cheese-ka jecel macaan u baksi helaysaa marka ujeedaan waa colorful wax ka maqan ma lahan ma sha Allah aad ma santiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh see you next video insha Allah